عاش عبدي دورشدي dhacday adigu gudaha joogtay yaa taageertay ma xisbigaaga kulmiya taageertay ma xisbi kalaad bari taartay ma arinta kale xanta ayaa xisbi afraad ba bal yaa taageertay بسم الله الرحمن الرحيم حنتي شيغي بابو يدي اما سودا تانين عصر كيس شيغي عصر كيس شيغي عشي عيب مره انا غورتو waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye waxaan ahaa asaasayaashiisii faaniga ma aha waa taariikh runa waxaan ahay qofkii ku lamaanay Axmed Siinayo ee sabab u ahaa askunkan iyo xisbigan inaanu amaamudno marka ilaa maanta xisbigan ka mid ahay waa xisbigaygii meelan kaga baxayna ma jiro nin weyn baan hoo dee haddaan ka baxayo ma dhuunteeno ma hulaabteene fagaara cad iyo maalin cad iyo goob cad baan kaga bixi lahaa marka ordaas waa qodob dee waxaan xisbigaygu waan jeclaa inuu guulaysto waxyaalo badan oo ka khaldanna waan arkay waan hore uga digay waan isla guuldaradana waa sabab anigu waxaan taageerayay hal door fara badan xisbi afraadna anigu ma yihi saddex xisbiya tartamayay hal door fara badan oo Somaliland gobolladeeda iyo deegaanadeeda ka tirsan oo aanu arkayay inay yihiin dad golaha sharci dejinta wax ku soo beerin kara oo xisbiga kulmiye kamida qaar u cida qaar wadaniya marka runta ku sheego ayaan waxa ugu badan aan siinayeen waxa weeye khibrad doorasho badan baan lahaa marka dad badan baa la talinayay xisbigana dee taladiisana layguma yeedhin sidoo ku guulaysan lahaa kulmiye layguma yeedhine dibadaan joogo dee ragga la fogeeyay baan ka mid ah marka muxuu ahaayay sababta guuldaradiisana dee cidda waa laga hadli doonaa cidda leh marka intaasaan ku soo ururinay dadweynaha waan u iman doonaa laakiin maxamed xaashi cabdi golihii wakiilada waa la soo doortay iminka waxa taagan loolankii shirgudoonka aragtidaada iyo aragnimadaada siyaasadeed ma waxaad leedahay waxa habboon in shirgudoonka ay mucaaradku qaataan mise waxa habboon in muxaafidku ay sii haystaan بسم الله الرحمن الرحيم doorashadii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay inoo dhacday 15 sano kadib waxaynu soo maray geedi dheer waxaynu qabnay hamuun dheer rag dadkii dhashay maalintii doorashadaasi dhaceen maanta way codeynayeen bal haday uun gaadhnayba waa wax weyn aqalka wakiiladu wuxuu ka kooban yahay 82 xubnood مسؤولية يحل يواجبات دستور كقرن كقاحي بيهيان. وحن أركيا وليس بدن أو هذا كتير ترتن ذو أذق وكتيره شرقدون كوجلا وكيلا إنه إسبهاي سجل معارض كهلا هي الحكومة كهلا هش حق بالوطنية وحن أركيا أركتيو كخلدن تطبدن oo ah hadii xukuumaddu shirgudoonka ku guulaysato in aqalka wakiilada dabka kaga iman lahaa ay ku guulaysatay aragtidaas saxaya aqalka wakiilada waa la doortay waa lagu kala calaf qaaday 250 xubnood buu mucaarad ku helay xisbiga kulmiyana wuxuu helay 30 taariikhda Soomaaliland waa markii ugu horeysay xisbi talada dalka haya lagaga tira batay xisbi ahaan uu noqday ka labaad marna xisbiga dawladdu kama tira badan karo labada xisbiga kale markii la isu geeyo way 2015 2005 49 xildhibaan baa labada xisbi ee kulmiye iyo u ciiday helay xisbigii udubna wuxuu helay 3 mudan wuxuu ahaa markaa xisbiga ugu tirada badnaa xisbigii soo xigay 5 buu ka horeeyay oo ah xisbi adag oo mucaarada oo hal door oo badhami ku dhag yahay haddana anagu kamid aha waxa nagu adkaatay inaanu maaj karayno xisbiga wadani
udub inaanu maaji karayno ama ku dhowaano ku darso oo doorashadii madaxtooyada 2 sano ka horna 42% iyo 42% ayaanu kala helnay guul weyn oo kale ma jirin kulmiye doorashadii la weyd 55% buu helay maantana 3 sano iyo bar kadib wuxuu helay 30 kursi xisbigii ka horeeyay intaa ayaa 30 isagu helay kalena wuxuu leeyahay 22 mudane weey aqalka wakiiladu marka laga tago nidaam qof waliba aragtidiisa ku shaqeeya aqligiisa ku shaqeeya kuna idman yahay oo xilbu qaranka u haya codkooduna waa haldheeri shirgudoonku ma qabta shaqaad ballaaran oo sida khaladka laga fahmay waxa golaha ka socda iga raaliqo waxa golaha ka socda ma caabi karo guushdoonku hadalku qaybiya go'aamadu saxiixa waxa weeye waa odayaashii aqalkan weeye marka xukuumadda Soomaaliland xisbiga kulmiyo maanta shirgudoonka aad ugu hamuumaysa waxba ka bedeli maysa xitaa haday aqalkan ku guuleystaan dhibaatada duufaanka kaga imanaya culayska golaha kaga imanaya way laga aqlabiyad badan yahay xukuumaddu kulmiyo maanta waa shimbir bilaa baalal ah waa shimbir bilaa baalal weeye magaalooyinkii waaweyn baa laga qabsaday aqalkii wakiiladana waa laga haystaa marka muhiim weyn ba anigu ma arko cidda shirgudoonka helaysa muhiimadda laakiin markaad eegto nidaamka check and balance-ka wadanka dee waxa u fiican in mucaaradku ka qabsado maadaama aqlabiyadda yahay bay u fiican xukuumaddana waxay u tahay oo ansaxaya qodobkaas xukuumaddana waxay u tahay baraarujin ayay u tahay hogaamiyaha fiicani wuxuu garan karaa siduu wax u qaban lahaa siduu wax u sixi lahaa siduu lalihiisa awoodi lahaa siduu xisbiyada mucaaradka daadadka deyrarka ka soo daadanayo anigu waxaan ka mid ahaa gole 20 xubnood oo kaliya mucaaradkayga aad ba maasanta weydiiyay waxay ahayd guuldaradii xisbiga kulmiye ka soo wajahday gobolka Togdheer iyo Sanaag adigu mas'uul ma ka ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim guuldaradii xisbiga kulmiye kaga dhacday doorashadan wakiilada iyo golayaasha deegaanka guud ahaanba dalka kagama dhicin gobol kaliya guud ahaanba gobolka caasimadii bay kaga dhacday anigu mas'uul kama yahay hebel kale oo aan iraado ama waa wasiir ama waa nin kale oo idmana anigu eedeeda saari maayo guuldarada xisbiga kulmiye ku timi dhanna uma dhaafsiisna gosha iyo gundaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay udub dhaxaad guuldarada u ah talaxumo iyo ilduuf siyaasadeed wuxuu yidhi hadeer waxa joogaa hadmaan ka afeeftay waxaana leeyahay hogaamiyaasha aan siyaasadoodu sabool ka ahayn cudurdaar uma sabeeyaan sababaha guuldaradooda hase yeeshee waxay saxaan qaladaadkooda waxay si fiican uga faa'iideystaan saarufka surmaseegtada iyo simbirixashooyinka siyaasadooda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa la gudboon in uu ceebta iyo canaanta guuldarada xisbiga uu odayga u yahay aanu cid kale kula ciirin ee uu isagu si fiican turubka u baandheeyo waxaan kaga baxayaa arrintaa iyada mas'uulka bay haarugu iyo nin kale oo toona xataa kuwa xilalka ayaa ku xeeran ayaanan mas'uuliyadda anigu aanan qabiilay